بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله فيديو كان waxaan kaga hadli doonaa kadib markaynu install garaysanay barnaamijkeeni markaynu soo kicino waxaad arkaysaa aan kuu soo muuqanaya marka ugu horeysa wajahdan aad arkayso wajahadatan qaybta hoose waxaad arkaysaa in saddex qaybood u qaybsanto inuu markaan ku leeyahay halkan start drawing ama bilow inaad wax sawirto automatically inuu halkan sidoo kale ku leeyahay waxa weeye recent documents waa maxay documentiyada ugu dambeeyay aan isticmaalay waqtiyadii la soo dhaafay sidoo kale inuu halkan ku leeyahay waa maxay notification iyo waa maxay connect waxaad connect garaysaa wax la yiraahdo A360 marka notifications kan waxa uu kugu soo bandhigayaa waxa wax kasta update oo shirkadda Autodesk ay sameysay oo barnaamijyadeeda ay ku soo dartay halkan hoosena waa maxay 360 ga waxa weeye waa cloud based system waxa weeye ay design kasta aad sameyso aad si fudud aad upload ugu dhigi karto waa maxay cloud-ka hadhowtiin aad waa maxay aad mustaqbalka meel kasta aad joogtay aad u baahan tahay base computer iyo internet iyo barnaamijkan ku install garaysan aad dhammaan design-nada hore oo design garaysataa si fudud aad waa maxay ula soo bixi karto aad marka inta aan wax kale aan qaban xaraamo kugu horeysa in aan 360 ama account-kayga aan toos ku galo aan markii aan sign in dhaho waxay soo furayaan waxa weeye wajahadatan aad arkaysiin aad marka hadii aad email hore aad hore u lahayd ama account hore aad hore ugu lahayd shirkadda Autodesk emailka ayaad si fudud halkan u gelinaysaa aad hadii kale waa maxay aadan lahayn waxaad leedahay create account waa maxay account cusub ayaad sameysanaysaa aad steps fudud waa maxay account kasta markaad sameysanaysaa bartan ayaad maraysaa aad markaan emailka ayaan saa u gelinayaa aan password-kayga aan gelinayaa waxa uu leeyahay waxa weeye 6 digit code ayaan ku soo dirayaa telefonkaaga si verification kugu sameeyo waxaan loo hubiyo qofka isticmaalaya inuu adiga yahay marka waxaan sugayaa ambas inuu ii soo dhaco waana ii soo dhacay waxa weeye 41 96 72 markaan code-kayga saa u geliyo waxaad arkaysaa aad muddo kadib inuu halkan leeyahay welcome Maxamed aytan saran uu leeyahay account-kaaga ayaa toos u gashay aad marka sida aan fileska intaan u upload garayno cloud-keena ama ugu save garayno cloud-keena hadhowtiin waa maxay si wadan uga soo bixi karnaa aynu iyadana hadhowtiin asla arki doonaa billahi idmo marka file cusub markaan rabo inaan furto waxaan dhihi karaa midna marka ugu horeysa saddex qaab baan u soo furi karaa inaan dhaho start drawing qaabkan igu soo furo wajahadii aan wax ku sawir lahaa uu geeyo ama hadii dib u noqono inaan dhaho waa maxay application menu-ga intaan soo furo waan dhaho new marka halkan hal step ayuu igu hormarinaya intuu sanigeen meeshan ku sawirayaan wuxuu tusayaa template-yada kala duwan tan marka get started markii aan waa maxay aan doortay markii ugu horeysay template-ka automatically asaga ay doortay midka uu yahay laakiin markii aan new aan dhaho midalan wuxuu leeyahay waa maxay template-ka aad dooranaysa aad u sheego marka labada template ugu muhiimsan ama ugu caansan aan anagu hadda isticmaalayna waxa weeye waa ACAD iyo ACAD ISO ACAD waa maxay imperial system kan ACAD ISO waa maxay waa metric system marka anagu badanaa waxaan isticmaali doonaa metric system-ka waa maxay ACAD ISO aan soo furno qaabka saddexaad waa maxay aan u soo furi karo waxa weeye inaan qaybtan sare waa maxay quick access toolbar aan furno new arka ka soo dooranno shariidka sare waa maxay quick access toolbariska aynu ka soo dooranno new kadibna aynu waa maxay isla sidoo kale ACAD ISO aan soo furno qaybtan hoose waxaad arkaysaa aad mid kasta waa maxay aan furno inuu asoo si tab ahaan ama window cusub ahaan oo halkan igu soo dirayo marka kan waxaad arkaysaa aad taabab kala duwan waa maxay projectyo kala duwan mesela mustaqbalka hadii aan rabo in aan isla wada furo hal mar inaan si fudud aan u furi karo intii aan doonana waa maxay aan halkan ka furi karo intii taaban doono aan sidoo kale waxaa fudud insha Allah mustaqbalka in hadii mesela project-kan kale shay muhiim ah oo maxay aad ku sawirtay inaad doonto inaad ka soo copy garaysato aad ku paste aad ku tiraahdo waa maxay project kale ku furan inaad iyadana waa maxay si fudud aad labada dhinacba aad u kala gooshi karto qaybtan sare waxa la yiraahdaa ribbon-ka dabcan hadii aad hore u soo isticmaashay Microsoft Office program sida Word Access dabcan waxa weeye qayb kulamahan oo hore aad u soo aragtay aad marka waa icon kuu sahlaya waa maxay inaad drawing-kaaga ama design-kaaga aad si fudud u sameysato aad iconada insha Allah mid kasta dushiisa ayaan tagaynaa aynu waa maxay
waxaan fiirin doonaa aynu amar kasta sidaan waxa u dooran lahayn aynu iyo sidaan waa maxay amarkaas aan u facalin lahayn oo waa maxay barnaamijkeena gudihiisa design-keena waa maxay aan ugu dabaqi lahayn. qaybtan sare waxaad arkaysaa aad quick access toolbar-ka waa maxay bas wax kasta oo ku jira application menu-gan ayuu qaybtan sarena ku keenay, wax farqi uma dhexeeya. Mesela waxaad arkaysaa new, waxaad arkaysaa waa maxay open, waxaad arkaysaa save, waxaad arkaysaa save as, waxaad arkaysaa print matalan haddii aad rabto inaad sheegayay ama waa maxay design-kaaga aad print garaysato aad in aad saan aad usoo sidoo kale waxaad arkaysaa aad undo iyo redo oo maxay matalan haddii aad shay aad sawirto oo kale matalan haddii aan halkaan kale online intaan amarka line intaan doorto soo garatay ma online kan matalan qaybtaan oo kale taan rabeen inaan dhigtaan iska dhiliyo aan delete dhawaan haddaan rabin aan qaybteeda hore u soo ceshaadaysaa redo si fudud ay ku soo noqon. qaybtan kale waxaad arkaysaa aad inaan isticmaalayno wax la yiraahdo drafting and annotation waa maxay waa mid qaybta aan wax ku sawirayno waxa jira waa maxay 3D basic iyadoo ah iyo waa maxay 3D modeling marka mid kamid ah kuwan hadduu active ku yahay waxaad ogaanaysaa aad in ay wax ka khaldayn marka markasta halkaas in kugu fadhido ayaa wanaagsan drafting annotation. haddii application menu aan soo furno waxaad arkaysaa new oo maxay ku leeyahay drawing cusub samee hadaa mesela tiraahdo mesela open waxaad arkaysaa uu leeyahay ma waxaad kala soo furaysaa aad ka soo bixinaysaa file-kaaga computer mesela haduu kugu save gareysan yahay oo kaleeto miyaad ka soo furaysaa mise waxaad ka soo furanaysaa aad cloud-ka in kugu save gareysan awal cloud-ka marka cloud-ka hadaad aragto waa maxay 360 waa maxay akoonkan hore u galna oo kaleeto haddii aan ku save gareysanay marka ugu horeysay design gaara waa maxay si fudud ayaan uga soo bixi karnaa matalan haddii aan dhahnaa dartan draw from haddaan rabno inaan 360 kala soo baxno arkaysaa design-nada oo dhan waa maxay igu jireen ay cloud-kayga. sidoo kale tan haddaan rabo inaan ku save gareeyo matalan waxaan dhihi karaa matalan inaan computer gudihiisa ku save gareeyo iyo waa maxay cloud-ka aan ku save gareeyo labada waa maxay waa laba option ay bannaan. qaybtan hoose ugu muhiimsan aan rabo maanta inaan ka hadlo waa maxay qaybtan la yiraahdo optionska. qaybtan optionska haddii matalan aan option dhaho waxaad arkaysaa saan ay qaabkan kugu soo furmayaa haddii matalan aan si kale tarabeen u soo furano waxaan dhihi karaa right click waxaan imaan karaa halkan options saan oo soo furi karaa marka optionskeenan haddii aynu soo furno waxaad arkaysaa aad marka ugu horeysa inuu halkan ku siinayo fileskan waxa weeye barnaamijka file la socda ay file kasta kamid halkan waa inaad xifdidaa haddii matalan waa maxay si fudud waa maxay remove aad u tiraahdo aad barnaamijkaaga inuu waa maxay crash u ka noqdo ay u badan tahay. mid ugu horeysa aan rabno inaan fiirino waxa weeye waa display-ga haddaynu saa u nimaano halkan waxaad arkaysaa qaybta ugu horeysa ku leeyahay window elements ama waxa la yiraahdo color scheme oo waa maxay dartan dark inuu fadhiyo matalan haddii aan light dhahno waxa inoo bedelayaa waxa weeye ribbon-kan qaybtan sare ribbon-ka colorkiisa ayuu bedelayaa. marka aniga waxaan jeclahay markasta darkii ahaato marka dark ayaan ku fariisinayaan. sidoo kale haddii aad doonayso waa maxay drawing area oo meesha aad wax ku sawirayso inaad color ka bedesho aad kaleeto waxaad imaanaysaa qaybtan colors waxaad imaanaysaa qaybtan colorka haddana wuxuu inoogu fadhiyaa uu numberkaas laakiin matalan haddii aan rabo inaan white ka dhigo oo kaleeto white ayaan leeyahay aan waxaad arkaysaa waa maxay qaybta dambe inay si fudud isu bedeshay color cad isku bedeshay ay marka طبعا يفضل waxa weeye markasta in colorkan black ku ahaado طبعا qof kasta ishiisa meesha murtax ku tahay ay ku xiran tahay laakiin aniga ahaan markasta waxaan jecelahay inay meeshaas madow ay noqoto waliba madow darka ay inaysan insaan kaleeto oo ay noqoto madow iyo blue isku jira marka matalan haddii aan dib ugu noqdo aan halkan u soo doorto waxaad arkaysaa aad colorkii inuu number marka hore ku qornaa numberkii meesha inuu ka baxayo marka haddii matalan restore oo kan tagtay aan dhaho aan ساقرتي ما من restore كرينا يو ساقرتي ما apply ده هذا كيسا color كي مدوي blue isku xigay inuu si fudud igu soo ceshay marka waxaad arkaysaa halkan haddii aan dib ugu soo noqono display-ga waxa la yiraahdo crosshair ka waxa weeye matalan haddii aad halkan aad line sawirato matalan marka command-ga line haddii aan rabo inaan sawiro waxaan taabanayaa xarafka L markaan soo taabto line-kaygi ayaan soo sawiranayaa haddaan rabo inaan line-ka ka baxo amarka matalan escape ayaan leeyahay marka hadda waxaan isku mashquulin waxa weeye amaradatan insha Allah amar kasta iyo maxay sida loo isticmaalo gadaaleen ka arki doonaa laakiin halkan tusaale gaar ayaan ka leeyahay inaan ka tuso matalan marka haddii line-kii
aan line kale halkan مثلا saa usoo warto aan doonayo aan labadan line inaan arko isku meel miyay ka bilaabanayaan ay dabcan waxaan isticmaalayaa waxa weeye crosshair-ka ama maxay mouse-kayga calaamada plus-ka soo garatay maaha marka haddii aan saa ugu fariisin waxaan arkayaa in plus-ka uusan gaarin line-ka kaleeto uu yar yahay mana garan karo waa maxay labada line inay isku meel ka bilaabanayaan ay marka haddii aan doonayo مثلا mustaqbalka inaan ogaado marka projectyada qaar markaan plan-ka u dhigtay sawirayga kaleeto waxaan u baahanahay aan مثلا line mucayyana inaan ka bilaabmo line-ka kaleeto meesha ka bilaabanaya مثلا saas oo kaleeto marka si aan line aan crosshair-ka u ziyaadiyo size-kiisa waxaan imaanayaa waa maxay display option-ka ayaan imaanayaa display ayaan ka tagayaan crosshair-ka مثلا 28 ayaan ka dhigayaan والله هدي أنا واحد أركي ساعات كروسر كي يجي زيادة حجم جيسي أنا هدي إنسان كله عنده عن أركي هو محي لبضل لين ينسى يسكو ميل قبل عملين هاي مركا جاي كصدورتي أن option display crosshair ساسكا هكذا إنك زيادة يعني هذا ما دقيق تنقل تولي هذا open and save هذا أركي سامر هو هرس إنه كله save as وكوجو save كريسين مثلا لبكون أوتوكار لبكون يا لبادي كون مركا halka macnaheedu waxa weeye anu hadda waxaan isticmaalayaa AutoCAD 2017 marka file-ka aan save gareeyo haddii aan save gareeyo wuxuu igu save gareysmayaa version ah 2000 ayuu igu save gareysmayaa marka مثلا haddii halkan ka bedelo aan dhaho 2013 مثلا haddaan ku save gareeyo waxaad arkaysaa waxa weeye in file-kaygan aan save gareeyo qof kasta oo haysta version ka hooseeya 2013 inuu soo furi karo file-kayga ama ku adkaanayso inuu furo uu markasta waxaa wanaagsan file kasta aad waa maxay save gareynayso aad sii hodhowto insha Allah mustaqbalka ayuu qof kasta waa maxay view uu sameeyo ama waa maxay wax ka bedeli karo aad u baahantahay inaad share gareyso file-kaaga marka version-ada dabcan dad kala duwan ay isticmaalaan hadda tan video-wadan duubayaan version-kan wuxuu tagay 2021 san hore u soo aragnayba marka waxa wanaagsan inaad version hoose aad ku save gareyso file-kaaga si waa maxay hodhowto mustaqbalka qof kasta uu u furi karo oo maxay version-ka hoose version-ka aad uga isticmaalaya qaybtan hoose haddaad aragto مثلا automatic save kan hadda wuxuu igu fadhiyaa 3 daqiiqo waa perfect مثلا laakiin default ahaan barnaamijka wuxuu kugu imaanayaa marka ugu horeysa 10 daqiiqo marka barnaamijkan markaan videogan aan diyaarinayay ayaan 3 daqiiqo ka dhigayaan marka مثلا haddii uu 10 daqiiqo halka kugu fadhiyo waxaad ka dhigaysaa 3 daqiiqo ama 5 daqiiqo macnaheedu waa maxay markasta 5 daqiiqo kasta oo waa maxay wax ka tacdiil aad ku samayso ama aad change ku samayso project-gaaga inuu asaga automatically uu save islaahayo haddaynu nimaano qaybteenan drafting-ka qaybta drafting-ka waxaad arkaysaa waxa la yiraahdo auto snap size iyo waxaad arkaysaa waxa la yiraahdo aperture size macnaheedu waa maxay haddii مثلا aan rabo labadan line mid aan iska dhiliido أو snap-kan aan off iska dhaho aan haddii aan doonayo مثلا line-kan halka inoo yaala inaan line kale aan ku dul sawiro ama line kale aan meesha ugu dambaysa cirifkiisa ugu dambeeya aan line kale kaga qabto aan مثلا amarkii line command-ga line aan doorto aan dhaho waa maxay halkaas igu qabo مثلا waxa aan raadinayaa aan waxaan raadinayaa aan meesha ugu dhow waa maxay line-ka kaleeto uu ku dhamaado مثلا haddii aan halka meesha ugu dambaysa aan imaado waxaad arkaysaa aan soo خلاص marka dartan ayaan joogaa meesha line-ka ugu dambeeyay andoo خلاص halka line-ka kaleeto iga qabo soo hagaagtay ma oo igu sawir haddii aan zoom dhaho halkan waxaad arkaysaa labadii line inaysan isu dhaweyn soo hagaagtay ma meeshii aan rabay in aan ka doorto inaan ka dooran mar labaad haddii aan dhaho waa maxay line hay dartan ay zoom iyo مثلا aan rabay in halka kaga qabto مثلا aan dhahay hadeer xageeba ugu dhow halkan kale ugu dhow aan dhahay line-ka ay sawir haddii aan zoom sii dhaho waxaad arkaysaa waa maxay labadii line inaysan hadana weli is dhaafeenay isna waa maxay labadii line ay weliba ay adag tahay haddii aad 10 sano soo socota aad isku daydo waa maxay nasaas wax ku sawirto aad labada line is suuqa qabsanayay marka waxa jirta khaasiyo waa maxay amar la yiraahdo halkan snaps ama snapka wuxuu ka saacideeyaa waxa weeye automatically مثلا markii aan line-kii aan saa u doorto inuu ku siiyo meeshii aad waxa weeye aad kaga qaban lahayd automatically waa soo ku doorto box cagaar ku galiyo aan مثلا hadii aan dhahay okay aan line-kii aan hadartan dib ugu noqdo halka labadii line inay is haystaan marka uu snapku waxa weeye wuxuu ka saacideeyaa waxa weeye in markasto waa maxay aan amar doorto waa maxay rabo meel
معينة drawing كيغا سو waxa garatay maaha in aan line ka sawiro ama middle point ha noqoto middle point waa maxay mithalathkaas waa maxay triangle-kaas u gelinaya ama line-ka bilowgiisa ha noqoto ama line-ka dhamaadkiisa ha noqoto inuu si fudud waa maxay asagu automatically isu raadsanayo markii waa maxay box-ka uu ku gelinayo marka box-kan oo kale مثلا marka qaar waxa jirta uu ka yar yahay ama waa maxay size-kiisu uu yar yahay xageeban ka siyaadinaya aan baan iri options soo wax garatay maaha drafting ayaan imaanayaan hadeertaan waxaad arkaysaa oo snapkayga inuu meesha ugu dambeeyo yahay hadii مثلا oo snapkayga aan sii yareeyo size-kiisa aan apply dhaho aan okay dhaho aan مثلا sidoo kale amarkii line aan doorto waxaad arkaysaa oo snapku active buu yahay waa maxay hoos qaybtan hoos active buu leeyahay laakiin sa box size-kiisi ayaa yaraaday hadeertaan marka badanaa waxa wanaagsan inaad box-kaaga waxaan jeclaa box-kayga inuu iska meel dhexaad yahay aadna uusan u weynayn aadna uusan u yarayn si waa maxay enough si waa maxay aan labada dhinac baan u arko marka haddii مثلا aan shaashada meel dhexe aan imaado aan line aan ay shakli aan rabo aan saa u sawiro selection kayga ama haddii aan rabo inaan shayga ka aan select dhaho waxaad arkaysaa haddii aan click dhaho aan dhinaca midig aan saa u jiido aan waxaad arkaysaa in colorku uu blue yahay haddii aan dhankan kale to bidixda aan saa soo dhahana waa maxay in colorkayga cagaar yahay labada dhinac waa maxay laba selection waxay ku kala duwan yihiin waxa weeye in haddii مثلا aan dhankan blue aan saa soo dhaho in waa maxay select ii dhahayo dhammaan line kasta oo buuxa isagoo waa maxay shakliga buuxa u soo dhexdhaxa waa maxay box-ka gudihiisa yani مثلا line kan oo kale to yani مثلا shakligan oo kale shakli ka fudud aynu soo warnaysi waa maxay aynu fahanno مثلا saan oo kale to marka line kan oo kale xagee uu ka bilaabmay wuxuu ka bilaabmay halka kan xageena ku dhamaaday halkan kale ku dhamaaday marka hadii aan rabo مثلا inaan selected oo hadii halkan imaado waxaad arkaysaa waa maxay in aan markii line kan oo waa maxay box-ka gudihiisa uu ku soo dhaco waa maxay in select ii noqonayo laakiin laymankan kale waa maxay box-ka marayo in si select ii ahaanin ilaa waa maxay box-ka asagoo dhameystiran waa maxay line-ka box-ka gudihiisa u yimaado marka hadii aan hore sa u soo socdo مثلا line-ka hoose waxaad arkaysaa muddo kadib markii aan dhaafo inuu box-ka gudihiisa dhammaan uu igu dhaxay waayo line-kan hoose xagee uu ka bilaabanayay halkan ilaa iyo intaas marka aan dhanka kale to aan saa u soo dhaho aan dhanka kale to bidixdaan u soo jiido intaan click dhaho shaashada aan dhanka bidix u soo jiido waxaad arkaysaa in colorka cagaar noqdo marka selection qaabkaana waxa weeye in مثلا box-ka uusan khasab ahayn waa maxay line-ku inuu box-ka gudihiisa uu dhammaantiis yimaado in yar oo kamid haduu waa maxay line-ka box-ka ka taabto automatically waa maxay waxa uu noqonayaa select yani مثلا line-kan hadeertan select uu noqdo waxaad arkaysaa iftiinkiisa inuu ka duwanaaday iftiinada kale to waa maxay uu muujinayo waa maxay inuu select noqday hadii aan hore u soo socdo waxaad arkaysaa line-ka kale to qaybta sare cirifka sare ka taabtay bas markiiba inuu waa maxay select ku noqday line-kan hoose hadda timaado waxaad arkaysaa markiiba inuu select ku noqdo asagana hoos hadaan u socdo waa maxay inuu select ku noqdo marka labada farqo u dhaxeeya labada selection waa maxay in hadii aan saan dhaho inaan select dhahayo bas laymanka buuxa ee box gudihiisa ku soo dhacay laymanka buuxa ee box gudihiisa ku soo dhacay waxaad arkaysaa labada line ugu sareeya oo ma qaybta sare ee triangle-ka in box gudihiisa iyagoo dhameystiran ku soo dhaxaynay marka saas ay labadaba ay active igu noqdeen hadii aan dhankan kale to dhaho sida kale u jeediyo waa maxay inuu cagaar ii noqday waa maxay isaga uu select ii noqday labada line oo hoose waayo labada line oo hoose waxa ay taabteen ay box-ka cagaarka ah marka labada line hadii aan doonayo مثلا inaan box-ka aan colorkiisa bedelo waa maxay colorkiisa aan aad u ziyaadiyo halkan aan ka ziyaadin karaa waa maxay inaan dhaho waa maxay blue ziyaada ka dhig مثلا okay hadii aan dhaho aan apply dhaho waxaad arkaysaa waa maxay hadii aan saan dhaho inaan wixii oo dhan aan box-ka blue-giisa aan ziyaada aan ka dhigay halkan cagaar ziyaada aan ka dhigay soo waxa garatay ma qaabka looga bedelana waa maxay waa marka wax laga soo bedelaa waa maxay option-ka marka axsan inaan ka dhigna waxa weeye sidiisii hore si waa maxay aan u arko waa maxay transparency uu noqdo box-kayga aan u arko waa maxay waxaan select aan dhahayo haddaynu qaamadeen option aan ku noqono waxaad arkaysaa aad oo kaleeto مثلا inaad halkaan aragtid amarkaan waa maxay use shift to add selection
soo xagaratay ma haddii مثلا kan oo kaleeto waa maxay uusan active ku ahayn waxaad tiraahdaa مثلا line kan oo kaleeto aan select iriyaan aan labada dhinacba waa maxay aan select karo مثلا haddii aan line kan select dhaho aan rabin aan line kan kaleeto select kaleeto dhaho soo xagaratay ma waxaad arkaysaa labada line oo kale saddexda line afarta line dhammaantood waa maxay in select ku dhahayaan ay marka مثلا hadduu qof waa maxay kaaga ciyaaro barnaamijka kaleeto waa maxay uu halkan use shift to add waa maxay off on ka dhigo uu waxaad arkaysaa مثلا marka line kan oo kaleeto select tiraahdo line kaas marka tiraahdo hay igu dar مثلا inuu line ka hore waa maxay selection ka qaadnayo hadaa line kaleeto aan waa maxay aan select waa maxay inuu line ka hore oo selection ka qaadnayo marka meeshan ka bedelayo waa xagee oo options iyo shift soo xagaratay ma apply ando aan okay dhaho soo xagaratay ma sida normal ka waa maxay in okay inuu saasay noqdo waa maxay aan intii aan doonayo lines inaan markiiba aan select dhigi karo aan marka insha Allah qaaimadan option inta ugu muhiimsan waa in wada fiirinayno aan rabno inaan ka isticmaalnayno insha Allah hadii aynu wax kale oo muhiim ah rabto inaad ka sii fiirfiirso online iyo waa maxay soo xagaratay ma halkan waa maxay online kayga ku tusay waa maxay akoonkayga magacayga soo xagaratay ma in waa maxay cloud storage kayga waa maxay inaan hal MB ka isticmaalay aan haysto ilaa 25 GB marka dabcan 25 GB aad u badan tahay markii loo fiiriyo waa maxay failasha AutoCAD-ka waa maxay xajmigoodu aad u yar yahay oo markii hadii aan saa u soo furno midna failkan halka inoo yaalo AutoCAD-ka oo kaleeto waa mashaariic saan kaleeto inoo diyaarsan waxaad arkaysaa aad in waa maxay MB uusan gaarin xataa waa maxay dhowr iyo 34 KB inuu yahay xajmigiisa file type ama format-ka barnaamij failasha AutoCAD-ka waxa weeye waxa lagu save gareeyo waxa la yiraahdo DWG mustaqbalka hadii aad aragto maxay file saan oo kaleeto ama icon saan oo kaleeto wata ama maxay type-kiisu uu yahay DWG waxaad ogaanaysaa aad inuu yahay file ay tahay in lagu furo barnaamijkan AutoCAD-ka insha Allah videogeena koobaad intaas ayaan kusoo koobaynaa aynu insha Allah video ku xiga waxaan isla arki doonaa maxay basic commands-ka insha Allah barnaamijkan uu leeyahay anaga ku ciyaari doona mid kasta aynu arki doonaa waa maxay ribbon-kan مثلا command-yada ku jira oo dhan inaan isla aragno aynu marka insha Allah intaas aan kusoo koobayo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.